مش وجود بي ورنتي دتك كعية قيرده ده oo dadka Soomaaliyeed runtii soo jiitay ee ku nool dibadda iyo gudaha waa kugu hambalyeynaya adigana aad baan ku salaamay marka waxaan doonayaa xasan cad maanta bal farxadaada adoo wariyaan oo dadku wada jecel yihiin oo la og yahay TV-gana si gaar ah uga muuqda caawa waxaad qaatay awards-ka walaal farxadaada iyo dadku u codeeyay maxaad gaarsiinaysaa horta dadka ii codeeyay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa runtii qofku ma ogaan karo marka uu ama kubad ciyaarayo ama uu saxaafad ku jiro ama uu heesayo ma ogaan karayo qiimaha uu ku dhaxleeyahay bulshadiisa laakiin wuxuu ogaan karaa marka xaflad noocan oo kala inta la soo qaban qaabiyo dad ilaa intaasoo kun oo qofooda oo daafaha caalamka kala jooga ay ku codeeyaan runtii tan waxa ay dhiiri gelinaysaa aniga kaliya ma ahan waxay dhiiri gelinaysaa telefishinka caalamiga ee Somali Channel oo runtii ay ku dhiiri gelinayso sidii uu maaragtay barnaamijyadiisa uu tayeyn lahaa barnaamijka falanqaynta waa la socotaa juhdi badan baa gala dadaal badan baa gala dadka maaragtay runtii wareysiyo badan baa gala marka waxay nagu dhiiri gelinaysaa in aanu markaan si laba kaclayno oo sanada cusub 2012 aanu soo bandhigno barnaamijyo dadku waxtar u ah runtii barnaamijyada runtii aan aad ka loo xiiseeyo ama ay dadku arkaan oo Somali Channel laga daawado runtii inkastoo ay dhowr yihiin haddana barnaamijka falanqaynta dhacdooyinku waa barnaamij mara maaragtay baaritaan fara badan waa barnaamij runtii sanadkan ugu dambeeyay aan dhigi karo taageerada ugu badan wuxuu ku helay barnaamijyadii aan uga sheekeynayno dhinaca badda ha ahaato dhinaca maaragtay dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysta ahaato waxyaabo noocaas oo kale ayaa laga yaabaa inay kor u kiciyaan annaguna waxaan ku dadaali doonaa wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed ay u arkaan oo telefishinka Somali Channelna maaragtay ku dhiiri gelinaya inay barnaamijyadiisa sii wadaan wallahi horta walaalena farxad weyn bay caaway tahay in aan soo keenay dadkii leaderka ahaa role modelkii dadkii lagu dayan lahaa dadkeena wuxuu taraayay ama hay'ad ha noqoto ama annaga hayahan farxad bay noo tahay runtii annaga waanu dhiiri gelinaa runtii dadka laakiin wax kale qofku wuxuu shaqaystay isaga shaqeeyay hadduu fanaan noqdana dadka dhiiri gelintiisa waa wax la wada garanayo marka anagu dhiiri gelin ayay noo tahaawne laakiin wax kale ku tarnaa ma jiraan aad iyo aad marta ugu amaanaya dahabshiil oo runtii gacan weyn bulshada horumarkeeda ka geysta oo waliba si furan UK dabadiisaba annagana aad noogu soo dhaweeyay arrintan waa arrin dadkoo dhan ka farxinaysa dadkoo dhan isu keenaysa dadka Soomaaliya ku hadloo dhan meel kasta ha ka yimaadeen waa arrin sanad walba aan doonay si hagaajina laakiin la'aantood ragga maanta qaatay dumarka maanta qaatay la'aantood ma samayn karno ra'yigooda feedbackooda nagu soo warceliyaan xagga TV-yada iyo saxaafaddu horumar weyn bay ka qaataan annaguna sanad walba waxaanu eegnaa 16 qof ama hay'adood ee dadkeena wuxuu soo kordhiyay sanad walba soo markaa sanad walba waxaan qabanaa bisha 12aad runtii dadkana wada arkaysaan waa dad aad iyo aad hariya habeen 24 hours dadka u shaqaynaya ama lacag ha bixiyeen ama TV-yada ku jireen ama heesaha qaadayaan ama waxa weeye bulshadeena aad bay sanadkan waqtigan ugu baahan tahay waayo burbur badan baa ka dhex jira qaybqaybsi badan baa ku dhex jira marka dadkana waa leaderskii waxaan jeclaynay si wadaan hawshooda iyaguna annagana nagu taageeraan sanadka dambe qabashadooda iyo waxaan qabanayno inay dhinac taagnaadaan aad baan ugu mahadsanyahay dhammaantood saxaafadda aad bay ugu mahadsantahay Somali Channel iyo TV-yada kale oo dhan ka qayb qaatay waana soo dhaweynaynaa waxaan leenahay aad u mahadsantahay dhammaantiin intaas kaga baxaya warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta kala soo qayb galo munaasabadan haya dhammaan dadka goobta ku sugan waxaan leeyahay oo ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina iyo dabcan haya oo soo qaybqaabisay wax kale oo raahdo ma garanayo maaragtay waxa muhiim ah in warbaahinta Soomaalida ay markasta xooga saarto sidii community-ga Soomaalida looga badbaadin lahaa caqabadaha haysta qofka media ku jirana markasta uu dareemo in uu matalayo dadka shacabka ah laakiin uu arko hawshaas oo hayo inuu dadka u hayo marka waan ku faraxsanahay waan uga mahad celinayaa haya iyo dhammaan dadka qabanqaabada xafladan aad iyo aad u mahadsantihiin waan ugu amalkaysaa daawadayaal waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda ku meel gaarka ayaa ku baaqay in hay'adaha amniga Soomaaliya ay hakad geliyaan safarada uu dibadda ku tagayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wakan wariye Nimca Maxamed Bashiir oo alaabo nooga soo waranta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo umurtan qaada dhigaysa
kadib kulan ay muqdisho ku yeesheen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayay kaga codsadeen hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya in ay hakad galiyaan safarada uu dalka dibadiisa ugu ambabaxo gudoomiyaha baarlamaanka oo xildhibaanadu sheegeen in uu ka yaalo mooshin ka dhan ah sidaas daraadeedna uusan gudoomiyuhu matali karin mudanayaasha baarlamaanka kulankan ay yeesheen xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ay albaabadu u xirnaayeen ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa warbaahinta la hadlay xildhibaan Cali Seeko oo kamid ahaa xildhibaanadii kulanka yeeshay saala socotaan maalmahan waxa jirtay xildhibaanada Soomaaliyeed inay mooshin ka dhana gudoominka baarlamaanka ay diyaariyeen maalmaha soo socdana la rabay in la qaado mooshinkaas gudoomiyaha baarlamaankana looga fadhiyay inuu eedeyntaas ka jawaabo isagoo goobjoog ah oo waddanka jooga waxaana soo gaartay inuu gudoomiyaha baarlamaanka saacadaha soo socda safar yahay oo bixi rabo waxaan rabaa marka anoo xildhibaanada meeshan ku shiray wakiilka ah aan soo jeediyo oo aan u soo jeediyo marka hore hay'adaha amniga qaranka Soomaaliyeed in ninkaas uusan bixi karin ilaa eedda u taalla uu ka baxo go'aankaas ayaan rabaa inaan soo jeediyo waxaan kaloo rabaa inaan ayagana u soo jeediyo ciidanka African Union ee halkan jooga iyo hay'adaha amniga labaduba inay ninkaas safarkaas ilaa oo eedaas ku taalla ka baxo ay ka joojiyaan qodobka labaad waxaan maqlay in uu u socdo Talyaaniga beesha caalamka oo Talyaaniga uu ka mid yahay khaasatan Talyaaniga oo hadda la yiri uu u socdaa waxaan u soo jeedinaynaa anaga baarlamaanka Soomaaliyeed ninkaas Shariif Xasana mooshin baa ka yaala mooshinka ka yaala waxaa la rabaa in maalmaha soo socda la qaado waa inuu eedaas u taalla ka baxo isagoon eedaas u taalla ka bixin oo ama inta ku guuleysto gudoomiye baarlamaan noqon ama inta guuldareysto aan xubin baarlamaanka ka mid ah noqonin eedeemihii kale u yeela markaas kadib aan ugu qaadi doonaa waxaan u soo jeedinaynaa oo u sheegaynaa dawladda Talyaaniga iyo beesha caalamka inteeda kale ninkaas Shariif Xasan kuma hadli karo afka baarlamaanka dhawaan ayay ahayd markii mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sidan oo kale kulan ugu yeeshay magaalada Muqdisho ay soo saareen mooshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka inkastoo gudoomiyaha baarlamaanku uusan weli ka hadlin mooshinkan ka dhanka ah ee ka soo baxay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Channel magaalada Muqdisho dhanka kalena odayaasha dhaqanka iyo aqoon-yahanada beelaha u dhashay Baay iyo Bokool ayaa qaadacay isla markaana ku gacan sayray ka qaybgalka shirka wada tashiga ee dhawaan lagu wado in lagu qabto wajigiisa labaad caasimada dowlad goboleedka Puntland ee Garowe Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black ayaa umurtan ka baaran degaya kadib kulan ballaaran oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen odayaasha dhaqanka waxgaradka aqoon-yahanada Digil iyo Mirifle ayay waxa ay qaadaceen ka qaybgalka shirka wada tashiga ee Soomaalida ee lagu wado dhawaan in lagu qabto magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland iyagoona ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Augustina Mihinga ku eedeeyay inuu wada kala qaybinta Soomaalida dhexdeeda ah isla markaana uu dhaxdhaxaad ka ahayn arrimaha Soomaaliya may cambaarayaan oo diidana sida walaalkay in ku horeeyay warka in sheegay gogol oo ka fidiye Mihinga meel la raaw Garowe odayaasha dhaqankii aqoon-yahanada sab aqya an qaadacani ma ogolina mana ogolana ma in ku digaaneen xildhibaanada qaranka Digil Mirifle 120 ilmaad xibnama idii ku qayb galo Digil Mirifle ku dhan waay ma qaadadaano man hada waayano ina go'aankani la qaadana fadaan wala uu geeynta rogna waxa gobol diglawo ma ku qayb galaano shir qaramada midoobay wadu madiidinini laakiin ma diidina lama qodob diidina qodob ka wada Mihinga wala isku maamulahay Soomaaliya
ulma hadho aynu diidin gogol la tiin garowna diidin waa in diinin sabayna qoraka ka sheegni may waha beryaalkan may socday maaragtay shir Soomaalida lanqo wada la leey iyo rood maangle raaw ya socdi shirkaas u sugay odayaasha dhaqanka degal in mirafle ulmaa u diinka aqoon-yahanada haweenka degal in mirafle mayan aragayna ani dambaneenka jarna bil kulliyam degal in mirafle mal ha kuusna shirkaas malka la talan wal malka weydiina sidaas dartiye hogaanka degal in mirafle hogaanka tiya kan maaragtay mihigan oo shirku isku wadu mayan aragayna mihigan beelo Soomaaliyeed beel kamid ah intii usan nagadi aan hayna lanjimada qurumaan dhaaytiin roogo dhaadhaada intii hay maylana tuulo kasta Soomaaliyeed hadii shir Soomaali halaal ee Soomaali aan dhanto lagu qabadaw una madiidan ma ka qeyb galaan shirki garow kulankani ay yeesheen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo aqoon-yahanada Digil iyo Mirifle ayay waxay dhanka kale ka soo saareen bayaan ka koobnaa baaq digniin iyo waliba cambaarayn waxaana saxaafadda u akhriyay gudoomiyaha aqoon-yahanada Digil iyo Mirifle Professor Ibrahim Muuse Heerow shirka wuxuu ku baaqayaa in la joojiyo colaadda iyo dagaalada sokeeye laguna bedelo nabad iyo xasilooni waarta digniin shirka wuxuu ka digayaa reformka qof ama koox oran karaan ma jiraan adigu waan ku tiray xildhibaan ma ihid bax adiga joog xildhibaan baa tahay mahiigana ma qori karo xildhibaan mana tiri karo xildhibaan Soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka ma qori karo mana tiri karo xildhibaan beeshiisa ayuu ku feelayaa haddii la gaaro reformka beel kasta waxay xaq u leedahay in ay soo xulato dadkeeda iyadoo beelna aan u afduubnayn shaksi qofkii ay isku soo raacdo beesha baa noqonaya xildhibaanka cambaareen shirka wuxuu cambaaraynayaa road mapka oo uu garwadeenka ka yahay mahiiga ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya shirka wuxuu ku tilmaamay wrong map waa talaabo dhinaca qaldan loo qaaday kulankani ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo in dhawaanahaniba ay yeelanayeen qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka Soomaalida ka oo aragtiyo kala duwan ay ka muujinayeen kulamada wada tagshiga ee qaramada midoobay ee ka wada gudaha Soomaaliya Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag Somali Channel magaalada Muqdisho dhanka kalena madaxweynaha Somaliland ayaa maanta xilkii ka qaaday taliyaha qaranka ciidanka Somaliland iyo waliba taliyaha howlgelinta ciidanka qaranka Somaliland isaga oo magacaabay mas'uuliyiin kale wakan wariye Maxamed Faarax Omaade oo alaabo nooga soo warama caasimada Somaliland ee magaalada Hargeysa oo umurtan eegaya war-saxaafadeed maanta ka soo baxay qasriga madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Somaliland oo uu ku saxiixan yahay afhayeenka madaxtooyada Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu maanta digreetay madaxweyne xilalkii kaga qaaday taliyihii hore ee ciidanka qaranka Somaliland iyo hoggaanka howlgelinta ciidanka qaranka isla markaana waxa uu madaxweynuhu xilalka u magacaabay taliye cusub iyo hoggaan cusub madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland markuu arkay in baahi loo qabo in dardar la geliyo howlaha ciidanka qaranka markuu tixgeliyay la tashiga madaxda ay arintaasi khusayso markuu arkay in aanu hanan karin xilalkii loo magacaabay waxa uu madaxweynuhu go'aansaday inuu xilalkii ka qaado taliyihii hore ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Nuux Ismaaciil Taani iyo hoggaanka howlgelinta ciidanka qaranka Somaliland Xasan Cabdi Yuusuf Xasan Kayse waxa uu mahadnaqay madaxweynuhu mas'uuliyiintaasi muddadii ay xilalka u soo hayeen hawshii ay qaranka u soo qabteen sidoo kale madaxweynuhu isaga oo sunnaha dawladnimo fulinaya waxa uu magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka qaranka Somaliland oo laga bilaabo maanta noqonaya Maxamed Xasan Cabdilaahi Jirif sidaas lamida waxa uu madaxweynuhu xilka ka qaaday hoggaanka howlgelinta ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Xasan Cabdi Yuusuf Xasan Kayse waxaana uu magacaabay hoggaanka howlgelinta ee ciidanka qaranka Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale madaxweynuhu waxa uu digreetadan ku amray wasiirka gaashaan
gaashaandhigga iyo la taliyaha arrimaha gaashaandhigga ee madaxweynuhu inay saraakiisha xilalka ugu kala wareejiyaan sida ugu dhaqsaha badan. Maxamed Faarax Coomaade, telefishinka caalamiga Somali Channel, Hargeysa. jaamacadda maakhir oo mar labaad dadweynaha ku dhaqan xarunta gobolka Sanaag iyo ee magaalada Badhan ay ka qayb qaateen dhismaheeda laguna dhisay iskaa wuxuu qabso ayaa dhawaan la soo gabagabay. waa kan wariye Cabdirasaaq Balbal oo nooga soo warrama gobolka Sanaag magaalada ku taale Laydha Badhan oo umuurtaas ka faaloonaya. maanta waa maalintii labaad ee dadweynaha reer Balmood si hagar la'aan ugu soo kalnahaan siday u hirgelin lahaayeen dhismaha Maakhir University. waxaa saaka markay ahayd qorraxdu sida muuqaalka idinka muuqata xilliguna uu ahaa aroornimo saacaduna ay ahayd 5 ayaa dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Badhan soo kalaheen oo wadin kacdoonkii horumarka ahaa. waxaana jimcihii hore la soo dhaafay la dhisay dhismaha hadda idin muuqda waana la bilaabay. haddaba dadkii waday kacdoonka horumarka ah ayaa waxay ahaayeen dhammaan qaybaha bulshada kala duwan sida ardayda, hooyooyinka, macallimiinta, ururada haweenka, ururada dhalinyarada iyo madaxda gobolka. suldaanka guud ee reer Maakhir oo isagu markay saacadu ahayd 7 aroornimo ka yimid dhanka iyo magaalada Hadaaftimo oo ah saldhigga suldaanka guud ee reer Maakhir, Suldaan Saciid Suldaan Cabdisaan oo hawsha kormeeriyay dhiirina gelinayay dadweynaha ayaa isagu dhex mariyay kana qayb qaadanayay dhismaha jaamacadda Maakhir. dhismuhu uu soconaya laga bilaabay 6 aroornimo ilaa 11 duhurnimo. markii ay hawshu soconaysay ayaan ka qaaday cod qaar ka mid ah gudiyada qabanqaabada uu ka mid yahay Cawshe Maxamuud Jaamac Badle wuxuuna yiri marka hore waxaan mahad ballaaran aan la soo koobi karin u jeedinayaa shacabweynaha reer Badhameed noociisa ugu jiraanba rag iyo dumarba dhammaan sida hagar la'aanta ay uga soo qayb galeen dhismaha jaamacadda Maakhir oo aanay u kala hadhin iyagoo midaysan isku duuban. talabaad waxaa mahad gaar iska leh oo bogaadin iska leh ardada iskuullada sida sekondariga Siinaay, dugsiga Alfurqaan, dugsiga Alnuur oo iyagoo isku duuban shaqadooda si hagar la'aan uga baxay una dhamaystirtay una wada u heegan iyagoo isku duuban ardaas oo raba mustaqbalkooda iyo future-kooda sugaya jaamacadda. waxaan marka kale mahadnaq u soo jeedinayaa TV-ga Somali Channel oo si hagar la'aan mar walba heegan ugu ah goobta jaamacadda oo haddana aynu ku sugannahay. gaar ahaan wariyaha khaaska u ah agaasimaha xafiiska Badhameed Mr. Cabdirasaaq Cali Balbal oo si hagar la'aan u duubaya uguna heegan hal iyo habeen ilaa saaka 5 subaxnimo iyo imaanka Saciid Tiij. waxaan kaloo iyana u soo waxaan galu jeedinayaa jaaliyadda dibadda ee u maqan madaqada reer Maakhir ama shacabka reer Maakhir waana aragtaan wixii dadka gudaha wixii aanu qabsanay iyo sida ay u socoto welina waanu sii wadin. maanta waa aragtaan halkan waxa socota maalintii labaad oo jaamacadda Maakhir oo ay reer Badhameed ku qaadeen olole dhisme oo iskooda. waa ilaahay mahadii maanta haddii mar dadka reer Badhameed ama reer Sanaag ay ogaadeen ayna heleen isku kalsooni. dadweynaha ka hadlay ayaa aad u fara badnaa oo madasha ku sugnaa waxaana dhammaantood ka qaadnay aragtida saaka ay u arkaan dhismaha oo sidan u hirgalay weyn. dhammaan dadkaasi waxay muujiyeen taageero inkastoo aan halka lagu soo koobi karin aragtida dadka. hase ahaatee bahda saxaafadda Somali Channel ayaa barnaamij ka diyaarinaysa dheer oo dhammaan laga soo gudbin doono muuqaaladaas. dhismuhu uu soconayay inkastoo dumarku ay markii ay dadku shaqaynayeen keeneen goobta dhismaha cunooyin fara badan. maayar ku-xigeenka magaalada Badhan ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Badhan Seenam Cabdi Aar ayaa iyaduna ku sugnayd madasha waxayna la hadashay jaamacadda Maakhir University taasoo ka soconayo halkan aad u fara badan oo maxay ahaydey la sugayay udud iyo maxay ahaydey maskax iyo muruq la sugayay waana dhisayo wadaqada qabadadeeda ugu muhiimsan ku jiro ka gol ahaan annagu wixii kasta oo maxay horumar ah oo wadanka loo qabanayo waxaan nahay waan taageernaa waan garab taaganahay maadaama aanu nahay dadkii ka yimid shacabka dhexdiisa oo shacabku soo doortay wax gaar ah kama yeelan karo. muuqaalka ka dhacay goobta ayaan ahayn mid intan lagu soo koobi karo. qaar ka mid ah abwaaniinta ayaa iyagu dadka dhiiri gelinayay shacabweynaha ka shaqaynayay. ugu dambeyntiina dadweynaha ayaa
la hadlay saxaafadda markii ay dhammaatay hawshu waxaana ugu horreyntii ka hadlay madasha Axmed Nuur Madoobe oo isagu aqoon-yahan u dhashay deegaanka Maakhir oo isagu hadda ka soo qalin jabiyay jaamacado ku yaala dalka Hindiya iyo Malaysia waxaana hadalkiisii ka mid ahaa Soomaaliya ama adduunka oo dhan marka la eego maanta guud ahaan waxay ugu liidataa Afrika waxay ugu liidataa Soomaaliyana waxay ugu liidataa gobolka la dhaho Sanaag magaalada Baran la yiraahdo waxaana sidaas oo lacag aynaan haysan maaha hanti aynaan haysan maaha dad aynaan haysan maaha waxa weeye doqonnimo halka ay dhigtay waxayna dhigaynaa asaga dharka weynay waxa dadku wax ka samaystaan waxa weeye ciid iyo biyana waa haysanaa bal darbiga ayaga ma Mareykan baa lacagta leenaga soo diray maya ciidda ma Mareykan ma inoo keenay ma haysto ciid Mareykanku warba kama haysan dalka aanoo ka imi biyo iyo ciid midna ma haysto Malaysia iyo India ka daran Australia ciidda iyada la geeyaa sidoo kale waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha dowladda Maakhir oo isagu aad u dhiirigeliyay shacabweynihii ugana warramay in xoogga dadka oo laga faa'iideysto uu yahay wax qaali ah halka saakan la yimi saacadu markay ahayd 5 ilaa haddana ay tahay 12 muuqaalka intaa la eg u dhismayna ay tahay faa'iido weyn ugu dambaystiina waxaa buraanbar aad loola dhacay ka akhriday goobta Xawo Maxamed Xujaale gurtidii reer Sanaag baa guddoonkan galay isimkii baa noo guddoonshoonna garab fadhiya ma kala gogoyne gacal wada socdaanu nahay dhammaan gabdho iyo reer gurmad baanu taagannahay inaan jaamacad hirgelinaanu heeganahay jaamacadda Maakhir dhismaheedu wuu soconayaa sida ay noo sheegeen qabanqaabiyaasha dhismaha jaamacadda Maakhir Cabdirasaaq Cali Benben telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Baran xaflad daahfurka ururka loo yaqaan NDP ee ururka nabadda iyo dimuqraadiga iyo barwaaqada kamid ah urur siyaasadeed looga dhawaaqay Somaliland ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada London ee wadanka Britain xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay garaado salaadiin iyo uqaaliya aqoon-yahano aad iyo aad u fara badan oo isaga yimid daafaha wadanka Britain xafladan ayaa waxa gudoomiye ka ahayd ama ururkan ayaa waxa gudoomiye ka ah Fawziya Yusuf Xaaji Aadan oo iyadu kamid ah aqoon-yahanada ama bayndheer garadka ugu caansan diasporaha Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Britain kala socotay aanu daafurnay si official ah xisbiga quruxda badan ee NDP ay hogaaminayso Professor Fawziya Yusuf Xaaji Aadan oo runtii macruufka ah Soomaaliya iyo Somaliland xisbigaas oo u taagan nabadda dimuqraadiyadda iyo barwaaqo waxaan leenahay hambalyo waanu garab taagna xisbigaas runtii asaasiyaasha ka mid ahay waxaana runtii soo jiidatay waxyaalaha ugu taagaya xisbigan oo ah runtii waxyaala aad iyo aad nolosha bini aadamka qiimo weyn ugu fadhiya kow waa nabadda nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii uu ducaysan jiray اللهم نسألك الأمن والإيمان وحاول هدان الأمن جين أما نبتجين إيمان نبتجلو إسلامي نبتجلو مركا إن وداس عن هاي سنوات كاسنو إن نسيا كيسنو مولو بدك كانو هدي أول قطع كنت لما وريقة هو نحسن قوة دقنك يدين الإسلام كوس دين الإسلام كوا دين تانو هاي سنوات النبي عليه الصلاة والسلام الرسول يقول دقن كيف الرسول يسيء بقول كيف بقول ولو هذا عندنا اسمه عن وفضل كيو يقول كل سنة وحويدين إسلام يلا ونرجع الحمد لله رب العالمين قال الإله سبحانه وتعالى أن ما تسكله عليه ما ترك رسولك كنا يا مال وين نسوي شيء كنت ممكن أروح عن مهد جار أسوي شيء والله إذا ما ترك رسولك كنا مناسبة كنت ذيك marka saddexaad waxaan mahad soo jeedinayaa xilliga dumarba yani munaasabada maanta runtii lagu wanqalay ama ururka laga NDP oo ah ururada yani Soomaaliland maanta filaya inuu wax ka noqdo suuqa qabiil maanta halkan suuqan keenay aad iyo aad u baahsan yihiin waxa soo runtii aan u mahadnaqayaa soo dhaweeyay taraabagani kiraad badan mahadsan tahay fanaanada caanka ah Maryam Musaafirti ومن أبدا نجح الصور يعني فنانين تسدع الشيء وضد كلوب هي يجوا يعني قبيلة كمان السنة قبل ما هذا حسب المرة لكن
hadda iyagu dee dadkii fiican ummadda ku qabanaya mar walba taageerayaan marka runtii aad baan ugu farxanay yani hawlaha ama heesaha ka wadaya ama gabarabadina waxa weeyaan runtii wax oo magaranaysa Soomaaliya ay kasbatay weeyaan sida laga sheegay runtii yani ismadu iyagu waxa weeyaan mar walba waxay garab taagan yihiin wixii ummadda ku qabanaya anagu كلنا سياسي ميلوتي صراحة لكن سوي المدة برشلونة بقابلنا يحسوا كلنا يقرب كذا تاجرنا هاي وانا كتاجرنا قرحان سوي والله إن أنا هكذا كسر شيء محاكمة NDP إنه حسب جنوب السوداء أو دور الصقر وحكينا عدالة ذلك أو مبدي كشيء هذا نقول لفتي إنه كان مدرسة وحكينا qayb qabyaalad iyo dadka la takooro oo laga badan yahay oo la haybsooco taa laftigeedu waxaa keentay in maartay ururkan ka dhiidiyo oo aan cidna la haybsoocin oo sinaan qof walba loo sameeyahay shaqo urur siyaasadeed kamida urur siyaasadeeda looga dhawaaqay Soomaaliland ayaa maanta looga dhawaaqay maba laga hirgeliyay isagoo xafiiskiisii koobaad ka furtay caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland ururkan oo lagu magacaabo Nasiye waa kan markale wariye Maxamed Faarax Xasan Omaade oo nooga soo warrama Hargeysa oo umuurtaas la faguraya gudoomiyaha urur siyaasadeedka Nasiye oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta iyo asaasayaasha ururka ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley halkaasi oo ay kaga hor yimaadeen meel magaalada ka baxsan boqolaal dadweyne ah oo kamid ah taageerayaasha ururkaasi kuwaasi oo ruuxayay astaanta ururka iyo caleemo qoyan iyadoo loo galbiyay madaxdii iyo waftigii ballaarnaa ee ururka siyaasadeedka Nasiye xafiiska ururka oo isla maanta uu gudoomiyuhu halkaasi xariga kaga jaray xariga tirida kadib waxa halkaasi hadallo ku aadan dareenkooda ka soo jeediyay cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Gabiley kuwaasi oo sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin in maanta ay soo gaaraan magaalada Gabiley madaxda urur siyaasadeedka Nasiye oo kamid ah ururada dhawaan laga dhawaaqay Soomaaliland waxaan ku soo dhaweynaynaa halkaas fiiran gacmo furan iyo qalbi faraxsan ururka Nasiye gudoomiyihiisa iyo dhammaan ururka waxaanu leenahay ku soo dhawow magaalada Gabiley gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Gabiley si qurux badan gacmo furan iyo qalbi faraxsan waanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay insha Allah ka mid noqo xisbiyada soo baxa ee ku jira tartanka Soomaaliland inaad noqoto saddexda xisbi ee soo hadha mid ka mid ah ayaan ilaahay ku baryaynaa أحمد محمد عمر وعلينا هاي كنتم يكسور دمو وقبل كانوا لغتاي وقبل كاغي كسور دمو كنتم يكسور دمو وعلينا هاي أيانو كم كعين فربضوك كسور دويننا لا أيانو عن كبرينا إلى الموضوع hormuudka beritoole lagu soo hirto ee Soomaaliland waxa isna halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha ururka Nasiye mudane Axmed Maxamed Cumar Axmed Talyaani oo ku dheeraaday sida uu ugu faraxsan yahay soo dhaweyntan taageerayaasha ururkoodu ay ku soo dhaweeyeen gobolka Gabiley waxaanu gudoomiyuhu sidoo kale uu xusay in ay urur ahaan buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa ururkooda loona diiwaan geliyay oo ay diiwaan geliyeen guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii ka mid ahaa maanta sida fiican ugu soo dhaweeyay gobolka Gabiley gaar ahaan caasimadiisa Gabiley waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhaweeyo aniga iyo waftiga iyo ururkaygaba farxad weyn bay ii tahay maanta dhalinyarta iyo aqoon-yahanada ku bahoobay ururkan oo dhammaantood ka soo kala jeeda gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland inta ay ka kooban tahay ayaa waxa uu mabaadi'diisu tahay in uu wax weyn ka bedelo qaabkii ay ururadii iyo xisbiyadii hore ku salaysnaayeen iyo nolosha dadka bulshada reer Soomaaliland heerarkeeda iyo noocyada kala duwan waxaan
jecelahay inaan fursaddan mar kale idiin sheego ururkani inuu yahay ururkii saddexaad ee dhammaystira dhammaan diiwaangelintii looga baahnaa shuruudihii qaranka sidaan hore u sheegay waxaan jecelahay inaan marar dambe isu soo noqonno oo aynu marar badan wada hadalno oo aynu ururka iyo dhismihiisa ka wada hadalno laakiin waxaan leeyahay waxaan idinka baahannahay taageeradiinna isla kaya aad taagtaan ood hiil iyo hooba noo hagar baxdaan waa markii ugu horeysay ee ururka nasiye uu si rasmi ah uga furto xafiis xarunta gobolka Gabiley ee magaalada Gabiley maxamed faarax Oomaade telefishinka caalamiga ee Somali Channel Hargeysa dhanka kalena salaadiintii aqoon-yahanada iyo culumaa diinta Boorama ayaa maanta ka qayb galay hotel casri oo laga furayay bartamaha caasimadda gobolka Awdal ee magaalada Boorama Cabdi Fataax Maxamed ayaa mar kale umurtan ka faaloonaya magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa maanta laga furay hotel casri ah oo ku yaala bartamaha magaalada Boorama hotelkan waxaa loogu magac daray Galad Hotel waxaana hotelkan xariga ka jaray Suldaan Abubakar Cilmi Wabar wuxuuna u duceeyay hotelkan ilaahay ugu rajeynayna qoyska dhisay hotelkan shaqada badan inay insha Allah dhisaan kuwa kale oo badan ay dhisaan oo kan ka sibro badan كما إن شاء الله مجددي لقنا هذا الجارو وإن شاء الله نقرأه وإلا يكرجينا waxaana munaasabadii lagu furayay ka soo qayb galay salaadiin oo waxgarad aqoon-yahano haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boorama madashan waxaa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan kuwaasoo marka la isku soo aruuriyo hadaladooda ay ku soo biyashubanayeen horumarka uu hotelkan ku soo kordhiyay magaalada Boorama waxayna hoosta ka xariiqeen inuu hotelkan Galad uu yahay hotel casri ah lana jaan qaadi kara caalamka horumaray waxaana qaarkood hadaladooda kamid ahaa marka inay marti badani muxuu ahay magaalada timaado martidaasina waxay u baahan yihiin meel ay degaan oo ay seexdaan oo ay ku nastaan bay u baahan yihiin marka taasina iyadna marka baahidii kale markaasi muxuu ahay accommodationkii ama moogtahay guriyeyntii ayay markaasi buuxinaysaa imika waxaa ubaana magaaladu moogtay markii serviceskan uu yar kordhay muxuu ahay waxbarashadiina ay korodhay caafimaadkiina loo yimaado imika xitaa guri la kiraysta waa laga leeyahay magaalada taasa muxuu ahay wad jirtaa marka waxbaynu baahi baynu buuxinayna hadii jeerna businessku wuxuu ka turjumaa inuu baahi jirta inuu buuxiyo ana fiican oo dad ku nasto oo martida waaweyn ee waddanka imanaysaana ay u hodato magaalada Boorama waxaa soo martay iyada oo dadka martida yimaada yani meel la geeyo oo ay u hoydaan oo ku habboon aan loo helin hotelkani waxaa filayaa inuu ku laban yahay hotelka Rays maarataanay hotelada magaalada u badan ay yihiin يعني قل يرى دور قف انت سيحدان بيتلميذ هي توشيش الكيو لو قلم ايا اي لفرت متلداس حقيقه دي وحويان هرمر وين ويان وانا ادي ادغم هاد نقيمها غيركي يعني ما رتاني دسي waxaan leenahay ilaahay arsaaq fiican oo xalaal oo wanaagsan Allah ka siiyo sharafta badan halkan way mooga dhisana adbaan kadaba ilaahay kadaba caalamku marka yani magaalooyinka la soo galo meelaha la eego waxa kamid ah leeyahay masaajidada dariiqyada dhiskan oo kale yaa kamid ah halkaas laga heestaa meelba siday tahay halkaas laga gartaa baa leeyahay waa muraayadii la iska daawanayay kan oo kale waa muraayadii la iska daawanayay waxaan leenahay saaxiibada kale baa mushtariga ama jaadlaha noqda ama sigaar ha iibiyo ama bacaha iibiye iyaguna kuwa la mid ah ay noo dhisaan insha Allah taala oo inuu ku kala baaro si kastaba haatee hotelkan Galad ee maanta laga furay bartamaha magaalada Boorama ayaa waxa uu noqon doonaa mid horumar weyn ku soo kordhiya goboladan Awdal iyo Salal Cabdi Fataax Axmed Somali Channel magaalada Boorama kulan ballaaran oo looga hadlayay tacadiyada lagula kaco haweenka oo muddo 15 maalmood ka soconaya caasimadda gobolka Togdheer ee magaalada Burco ayaa maanta la soo gabagabeeyay wariye Maxamed Cawad Maxamed oo alaabo nooga soo warama gobolka Togdheer caasimadiisa magaalada Burco ayaa umurtan ka faaloonaya kulan ballaaran oo lagu soo afmeerayay olole lagula dagaalamayay tacadiyada lagula kaca haweenka oo ka soconaya gobolka Togdheer muddo 16 maalmood ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay hotel barwaaqo ee magaalada Burco kaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer
waxaana kulankani ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka togdheer laamaha dowladda ee heer gobol saraakiisha ciidamada booliska iyo asluubta hay-adaha wadaniga ee ka howlgala gobolkani togdheer iyo martisharaf kale oo badan waxaana ugu horreynba kulankani ka hadlay isuduwaha wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee gobolka togdheer Ismaaciil Axmed Xayir waxaana uu sheegay in kulankan uu yahay mid lagu soo gunaanadayo oo la socday muddo 16 casho oo lagula dagaalamayay tacadiyada ka dhanka ah haweenka sidii wax looga qaban lahaa oo ku saabsan oo la 16 casho soconayo ku saabsan sidii loo joojin lahaa tacadiyada lagu sameeyo dumarada okay 16 casho waxa soconayay 16 casho oo lagu jiray activities badan baa la sameeyay haday tahay carruurta child protection haday FGM tahay hadii ay tahay ma garanaysaa tacadiyada kale ee loo geysto dumarka waxa soo dhan baa laga shaqeynayay marka maanta ayaa lagu gunaanadayaa 10 December ayaa la isugu soo xooriyaa oo xaflad loo sameeyaa lagu soo gunaanado waxyaalaha ma garanaysaa 16 casho la soo qabtay gudoomiyaha gobolka togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi oo isaguna kulankani ka hadlay ayaa ayaan darro ku tilmaamay in tacadiyada lagula kaco haweenka ay bulshadu si fudud ku xaliso balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka dambiyada xadgudubka ku ah dumarka gala la horkeeno maxkamadda isla markaana shareecada lagu xukumo waxaanu ugu baaqay in hay'adaha wadaniga iyo shacbiguba ay arrintani si wada jir ah uga howlgalaan sidii loo meel marin lahaa hay'adaha ama jooyada wadaniga inay ka howlgalaan وعجال لك سمايان أرد أن ينتظر أردن إن قاضي كقاضي إن خرجان كقاضي إن أنا دعين أنا ودرنا صنعي وحيابي هذه أقول تعجليان تط نبل وذقاتي ومتى يدخل ما تدق عليه عليها ورتاسا وعجلوا بهن تاسا وعجلوا بهن إن لقوا عجلية ضد كنا يعقاشنا يوحجرت كنا قبل ما كتشواب يدل من قفل وجيس كم تشواب كرو إلى هذا حسابها أنا أقول لنا حري ما يسوى دل مجدنا وياه madaxa hay'adda CCPRS ee gobolka Togdheer Cabdisalaan Maxamuud Ducaale Ilka Cabse iyo saraakiil kale oo iyaguna ka socotay hay'adaha wadaniga ayaa soo dhaweeyay barnaamijkan lagula dagaalamayo tacadiga lagula kaco haweenka isla markaana xusay in loo baahan yahay in bulshada ay ka wada qayb qaadato sidii arrimahani soo noqnoqonayo loo suulin lahaa waxa kale oo iyaguna kulankani ka hadlay agaasimaha waaxda qoyska ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Togdheer Caashe Cali Qabile taliyaasha ciidamada booliska iyo asluubta ee gobolka togdheer isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka togdheer Kaysa Xaaji Diiriye madaxa ururka haweenka qaranka Noow Hinda Jaamac iyo martisharaf kale oo badan dhammaantoodna waxay ku dheeraadeen sida ay muhiimka u tahay xilligani wax ka qabashada tacadiyada lagula kaco haweenka kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay noqday kuwa xadaafa ugu dambeyntiina kulankani lagaga hadlayay tacadiyada iyo xadgudubyada lagula kaco haweenka ee lagu soo gabagabeynayay barnaamijkani socday 16 maalmood ee lagula dagaalamayay arrimahani ayaa isagu wax weyn ka tari doona tacadiyada iyo xadgudubyada loo geysto haweenweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer Maxamed Caawad Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Burco dhanka kalena madrasada al-Imaam oo kamid ah iskuulada islaamiga ay carruurtu wax ku bartaan oo ku taala magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ayaa maanta loo qabtay xaflad xiritaan ah fasaxa madrasada al-Imaam waa kan wariye Faysal Xaseer Maxamed oo nooga soo warrama caasimada wadanka Kenya ee magaalada Nairobi oo umurtaas eegaya وهي شهادتان وعدة الإيمان وصوم وصلاة والحج والزكاة xafladan oo ahayd misiyaar sare loo soo agaasimay waa ka soo qayb galeen culimo u diin waalidiinta dhalay carruurta dhigata madrasada al-Imaan ayaa waxa ay ku saabsaneyd xiritaanka sanadisiyeedka 2011 waxa goobta lagu gudoonsiiyay ardada natiijada imtixaanka iyagoo ay gowjo ka ahaayeen waalidiintooda ugu horeen ayaa waxa xafladda daafuray Cabdinuur Saalax Cali oo ah maamulaha madrasada al-Imaan inta kadib waxaan u mahadcelinaynaa macallimiintii iyo maamulkii iskuulka haddaan nahay waalidiinta sharafta leh waqtigoodii soo huray soo dadaalay ee dul qaatay waxaan kaloo mahadcelinayaa culimada iyo marti sharafka barnaamijka nagala soo qayb galay waxaan kaloo mahadcelinayaa TV-ga Somali Channel oo ah TV inta badan barnaamijta waxbarashada iyo horumarinta qayb ka qaata dadkana u soo gudbiya waxaan kaloo mahadcelinayaa ardayda al-Imaan School oo ayaguna sanad dadaal badan soo bixiyay sanadkan sanad aad u culusna uu u dhamaaday
sidoo kale macallimiinta oo dhan ayaan u mahad celinayaa. intaa kadib wixii aan oran lahaay oo dhan hortay ayaa la yidhi, waqtiguna waa daahay ayaad moodaa. waxaan uun ku soo gebagabaynayaa sida aan wada garanayno madrasada sanad baa usoo dhammaaday, sanad daal badan oo waalidiinta iyo macallimiinta iyo ardaduba ay wada shaqaynayeen ayuu ahaa. allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa wixii aan sanadkaa qabannay inuu guul noogu khatimo, ajarna naga siiyo. sanadaha soo socdana rabbi subxaanahu wa tacaala inuu garabkeenna ahaado. caqabaad fara badan oo mar walba iskuulka ka hor yimaada, fadliga alle subxaanahu wa tacaala kadib ayaa waalidiinta ayaa qayb ka ah guusha iyo horumarka uu iskuulku mar walba uu gaarayo. waa kuwana qaar ka mid ah culuumudiinkii waalidiintii madasha ka hadlay uga mahad celiyay maamulka madrasada Al-Imaan sida ay ugu soo dadaaleen carruurta. madrasada Al-Imaan iyo macallimiinteeda kala duwan iyo dadaalka ay ku bixiyeen xaqligan tacliimiga ah iyo tarbiyadan iyo waxbarashada tan. waxaan kaloo mahad celinayaa waalidiinta laftigoodu soo ajiibay in mashruucan uu hirgalo oo ilmahooda keenay. waxaan rabaa wax yar inaan idin ifiyo tarbiyadu saddex geesood weeye, saddex qaybood oo asaasi ah bay tarbiyadu leedahay. qaybta koowaad ee tarbiyada waxa weeye waa guriga oo asaasi ay u yihiin labada waalidka ah iyo ilmuhu cidda uu la nool yahay oo guriga. haddii marka gurigu uusan hagaagsanayn oo tarbiyo wanaagsan iyo tacliin iyo akhlaaq iyo dadaal unu ka jirinin, ilmahaasi waxa weeye akhlaaqdiisii waxbarashadiisii wax weyn baa ka lumaya. ilmuhu ficil ahaan wuxuu kaaga arko baa ka weyn waxa aad u sheegayso afka uga sheegaysid. sidaa darteed yacni qudwa saalixa waa lagama maarmaan, iyo gurigii inuu yahay guri maaragtay u habboon madarasa wanaagsan oo ilmihii ay ka soo baxayaan. hooyadii inay xijaabkii iyo asturkii ilaaliso, salaadii guriga in looga dadaalo, akhlaaqdii wanaagsanayd. laa shaka canuga isaga oo meesha ku barbaaray khayr badan baa loo rajaynayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa biasmaa'i lxusna wa sifaati alculaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala na ilaaliyo. When you are at home, the child is yours. When in school, the child is mine. Therefore, we cannot do something bad to the child, but we want to model the child in the form which this child, the education will help in future. TV-yada guryaha idin yaalla idinka iyo ilmahaba waxaad daawanaysaan fiirsada. ilmo yaroo dugsiga yimi dugsi quraan aan jooga yimi baa waxaan yidhi wareexado dhan maxaa ku soo jeeday suuya aniga hooyaa filin isla daawanaynay. ilmaha marka hooyadiis iyo asaga 7 saac hameen filinka isla gaareen muxuu baran maamadu goormay wax u sheegin. waagii hore kuwa qaar aan luqadaha aqoon waxay dhageystaan maba haysane hadeer waxaa la keenay in lagu turjumo luqadda Soomaaliga oo dhan wax alla wixii filimaan xun iyo jinnijaankii iyo wixii oo marka dhaqankii gaalada inta la soo guuriyay dhaqanka anagana loo soo guuriyay. qof walba waa muhiim guriga waa muhiim waxa gurigaaga ka socda inaad la socotid adiga iyo ilmahaagana marka saas aad ku badbaadi kartaan. waa mahadsantiin. waxaan u maleynayaa waxaa la isugu yimid ardadii oo imtixaankii laga qaaday sanadka ahaa oo u xirmahayo. waxaa waalidiinta loogu yeeray kolleyba haddee inay la socdaan ilmahooda natiijadoodii lana tuso siday wax u barteen. waad arkaysaan waxaa nala soo bandhigay luuqadihii la barahaya carruurta iyagoo ama ku heesahaya ama ku muxuu ahay muxaadaraynahaya. il fiican baa ka muuqatay. halkaas macallimiinta waxaan u celinaynaa mahad weyn. Faysal Caseer, Somali Channel, Nairobi. dhowaan ayay ahayd markii lagu dilay Puntland allah u naxariistay Dr. Sheikh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa mutacalimiinta ama aqoon-yahanada iyo mashaayikhda ugu waaweyn wadanka Soomaaliya. kulan ballaaran oo looga tacsiyeynayay ummadda Soomaaliyeed geeridii marxuumka ku timid iyo eheladiisa ayaa lagu qabtay masjidka Daarul Islaam ee magaalada London. Umar Sheikh Aadan ayaa umuurtan eegaya. kulan ballaaran oo lagu tacsiyeynayay Dr. Sheikh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan ayaa lagu qabtay masaajidka Daarul Salaam ee magaalada London. waxaa kale oo isla kulankaas lagu gorfeeyay kaalinta culumaa diinka uga aadan xaaladda qalafsan oo uu dalka Soomaaliya ku sugan yahay waqtigan xaadirka ah. kulankiina wuxuu u dhacay sida aad arki doontaan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد
walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan caawa waxaa isugu yimid ducaadii culimmadii matalaysay UK maraakisteeda Soomaalidu ay leedahay oo ka yimid magaalooyin badan oo kala gedisan oo ay ka mid tahay London, Bristol, Birmingham, Leicester iyo meelo kale oo badan. dhammaantiin waan soo dhaweynayaa waana ku mahadsantihiin ka soo qaybgalka kulankan. hadafka kulankan aan culimmadu isugu yimaadeen halkan waxa uu ahaa inay culimmadu ay wax iska yiraahdaan ahdaafta maaragtay dhulkeeni ka dhacaysa iyo dilkii fadiilatu Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan rahimahullah oo ahaa caalim kamid ah culimada Soomaaliyeed ee caanka ah. maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa walaalahanaga martida noo ah ka yimid gobolada iyo London ka kala yimid masjidka Daarusalaam baan waxaan ku soo dhaweynaynaa iyagoo ka tacsiin ama ka tiiraansan ama ka xun walaalkeen Dr. Axmed ama Dr. Sheekh Cabdiraxmaan Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan xis oo ogtihiin in lagu dilay maalmihii la soo dhaafay magaalada Boosaaso. taas inagoo caawa halkan isugu nimid aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa walaalahayna meesha yimid annagoo ka xun walaalkeen sheekha caalimka ahaa inagoo walaalkeena u ducaynayna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu shahiid ka dhigo. ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalkeen ha u naxariisto inagana ha noogu dambi dhaafo. Sheekh Axmed Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan wuxuu dhashay 1958 wuxuu ku dhashay Gaalkacyo. waxa uu quraanka ku bartay halkaas wuxuuna ku biiray 66kii madrasadii carabiga ahayd ee magaalada ka jirtay. dabeedna dugsiga dhexe iyo dugsiga sare wuxuu ku dhamaystay Xamar oo wuxuu ka baxay Jamaal Cabdinaasir madrasadii carabiga ahayd. ka bacdina wuxuu ku biiray ciidanka oo waxa loo qaaday tababar ah dhinaca Ciraaq halkaas uu ka soo baxay kulliyada harbiya 4 sano uu ku soo dhamaystay. waxa uu ku soo noqday isagoo daabid ah 80kii waqtigaas uu isaga tagay oo uu ku biiray jaamacad Qura. jaamacad Qura wuxuu ka qaatay darajada ugu hooseysa jaamacadda oo la yiraahdo Baccalaureate waxa uuna ku baasay mumtaaz darajada mumtaaz. dabeedna wuxuu qaatay magister iyadana wuxuu ku baasay darajada mumtaaz. wuxuu dabeedna loo ogolaaday in uu ku qaato doctorate inuu qaato iyadana wuxuu ku baasay mumtaaz iyo in la daabaco risaaladiisii uu doctorate ku qaatay. marka waxa uu Baccalaureate ka dhameeyay 85kii 92kii magister buu dhameeyay 99kana wuxuu qaatay doctorate. waxauna waligi ahaaba la yiri galaaska midka ugu horeeya min bidaayatihi ila nihayatihi. nuqdada soo socota ama qodobka soo socda wuxuu ku saabsan yahay bal in culimadu ay wax iska yiraahdaan yaa ka dambeeya dilalkan qorshaysan iqtiyaalaadka munadamka ee wadankeena ka dhacaya cunfiga wadankeena ka dhacaya waxaan ku jirin mu'amaraad inay jiraan doonaya inuusan wadankan uusan degin laga yaabo mu'amaraadkaas inay khaarij yihiin laakiin laga yaabo iyagoo khaariji haddana dad daakhiliya in ay ku shaqaysanayaan qastin iyagoo og ama iyagoo aan ogeyn kuwa wax fulinaya waxa ka ratimaya maaragtay camalka ay sameynayaan. waxaan hadda u furayaa culimada in ay wax iska yiraahdaan insha Allah tacaala qof gacan taagtaan siinaya. yaa ka dambeeyay dilalkan Sheekh Axmed ugu dambeeyay ay culimo leedahay cid walba leedahay. taas marka waxaan ka leeyahay sida walaalkay uu taabtay waxa ka dambeeya cadow wadankan uu leeyahay diinta iyo dalka uu leeyahay cid walba ha adeegsadeen. laakiin shaki waxa naga jirin dadkii fuliyay dhalinyarada loo soo diray inay dad Soomaali yihiin muslimiin. أنا waxaan oran lahaa ciidan meesha isku haysay ilaa isugu dhiibay ee muslimiinta ah inaynu islaax dhexdooda gallo oo hadaynu cidii dawladaha muslimiinta aynu la kaashanayno ciidan leh ee suldad leh aynu marka la kaashano markaan wax dhexdhexaadinayno aynu ahaano dhexdhexaad ahaano adigoo arka marmarka qaar xaqa marka اللهم اغفر للدكتور أحمد حاج عبد الرحمن وارفع درجته في المهديين فامل كيسنا إلهي خلف خير بدن وين مارتسي مارتي سلمة رسولك صلى الله عليه وسلم مركي أي كسبر ويدي مارتي أبو سلمة رسولك حير واحد كد عيسى دعاء ماركت الله مخلوف في مصيبتي عنها مصيبة إله خلف
iga sii marka faamilkii iyo ummadda soomaaliyeed iyo dadka dacwada iyo dadka cilmiga iyo khayrka iyo sunnada jecel oo dhan ducadaas oo kale ayaan insha allahu tacaala inaan ku ducaysana ay tahay. waxaan halkan uga tacsiyadaynayaa sheekha doctor sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan oo ku geeriyooday magaalada boosaaso. runtii gacan ka xaq daran ay dishay, sidaan u qabana dee ummadina ay ku indhabeeshay, isaguna uu nasiibkiisii oo wanaagsan ka qaaday. waayo haddii gacan kaa xaq daran ay ku disho nasiibkaagu aada buu wanaagsan sida ay runtu tahay. markhaatigii faraha badnaa ee u dhacayay dee ummadda u furaysana runtii waa wax farxad gelinaya qofkii islaama inuu ninkaasi meel wanaagsan ku dambaynayo. geeridu waa xaqoo waynu wada dhimanaynaa, laakiin runtii wixii dee uu ina tarayay iyo baahidii aynu inagu u qabnay un baynu la calacalaynaaye isagu halka uu ku jihaysan yahay runtii waa meel looga markhaati kacay. doctorka allah yarxam socoye raggii lamidka ahaa ma u istaagnaa oo safkooda ma noqonnaa base waxaan idhahnaa yaan laga hadlin yaan laga sheegin. nin walba carruurtiisa iyo ma arkaysaa ha kursado iyo islaamihiisa. arrintu waa soo dhaafta carruur iyo islaamahan masaajid ku haysanaa iyo hadal yaan la gelin waa soo dhaafta maanta because waxay maraysaa xabad baa la isla dul taagan yahay. anu marka waxaan leeyahay nin yaan la kala gabanin maanta. wixii xaqdarro ku socda ha la bidhaamiyo, wixii qulubu ku jira ha la bidhaamiyo, wixii ma arkaysaa xadgudbay ha la bidhaamiyo, wixii diinta ka khaldan yihiin ha la bidhaamiyo. qof xataa haddii culimmadu khaldanta ha la qabto iyago ha la yihahdo culimmadu wada khaldantihiin jidkaa mara. arrintan waxaan weeye taxsi ayaan rajaynayaa inay tahay. waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. walaalkeen axmed doctor axmed xaaji cabdiraxmaan waxaan leenahay horta marka hore waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto. gacan ka gardaran baa dishay. qodobka koowaad waxaanu tacsi u diraynaa eheladii, aqaaribtii, ardaydii iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ee uu ka geeriyooday sheekhu. waxaanu marka labaad cambaaraynaynaa falkaas foosha xun ee lagu ugaarsanayo laguna laynayo culummada iyo waxgaradka iyo dadka waxgalka ah iyo odayaasha dhaqanka ee ummadda soomaaliyeed ay leedahay, oo dhaqanku uu ahaan jiray in ay yihiin birmagaydo aan la dilin. qodobka saddexaad waxaanu shacabka soomaaliyeed iyo maamulada ka dhisan meelaha falalka noocaas oo keliya ay ka dhacayaan aanu u soo jeedinaynaa in ay ilaaliyaan, dhowraan, kuna hagoogtaan culummadooda iyo dadka waxgaradka ah ee birmageydada ah dhammaantood. marka afraad in dadka magaca culummo sita ee soo saaraya fatwooyinka lagu bannaynayo dhiigga shacabka soomaaliyeed, waxgaradkiisa iyo culummadiisa iyo dadka waxgalka oo dhan ay ilaahay uga toobad keenaan subxaana wa tacaala, ogaadaanna in ay iyagu qaadayaan oo ay xambaarayaan mas-uuliyadda dhiigga cid walba oo fatwadooda lagu dilo hadda iyo intii ka dambaysaba. qodobka shanaad in madaxda dhaqanka soomaaliyeed ay u istaagaan dowrkooda kaga aadan islaaxinta iyo dhexdhexaadinta dadka ku dagaalamaya dalka soomaaliyeed, islamarkaana ay joojiyaan dhiigga daadanaya intii ay awoodi karaan. marka lixaad waxaanu u soo jeedinaynaa qurbajoogta soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan dalkan UK inay u istaagaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatada raagtay ee dalka Soomaaliya ka taagan. marka toddobaad waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu fadeexeeyo, ceebeeyo, bannaankana uu soo dhigo kuwa ummadda Soomaaliyeed waxgaradkeeda laynaya oo ugu dambeeyey sheekh doctor axmed xaaji cabdiraxmaan. marka sideedaad waxaanu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay dhibaatooyinka dhexdeeda ah iyadu xalliso, meeshana laga saaro faragelinta shisheeye gaar ahaan wadamada dariska ah ee Soomaaliya dariska la ah oo faragelintoodu ay dhibaato badan wadanka ku hayso ama ka abuurto. waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu dhibaatada ka qaado, rabbina subxaanahu wa tacaala uu xalliyo mashaakilkeeda. هذا وبالله التوفيق وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد. tartankii ciyaaraha gobolada Somaliland oo muddooyinkan dambe ka socday magaalada Burco ayaa maanta waxa ku kulmay gobolada Sanaag iyo Maroodi Jeex, ciyaartaas oo ka qayb ah wareegga saddexaad ee ciyaaraha gobolada Somaliland. mar kale wariye Maxamed Cawad Maxamed ayaa umuurtan ka barandagaya.
tartankii ciyaaraha gobolada Somaliland oo weli ka sii socda magaalada Burco isla markaana haatan ay qaar ka tirsan goboladu u gudbeen wareegga afraad ee tartankani ayaa galabta garoonka Alamsey Stadium ee magaalada Burco ay ku kulmeen gobolada Sanaag iyo Maroodijeex oo ka wada tirsan groupka koowaad isla markaasna ay ciyaartan ahayd tii ugu dambeysay ay u gudbi lahaayeen wareegga afraad cidii guuleysata ciyaartani ayaa iyadoo ahayd mid aad u xiiso badan isla markaasna ay labada gobolba ciyaar aad u wanaagsan soo bandhigeen iyadoo xulka gobolka Sanaag oo natiijadiisu ay aad u fogeed u dadaalo badan muujiyay balse aanay u suurtagelin inuu galabta u gudbo wareegga afraad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland ciyaartani ayaa iyadu qaybtii hore ku soo gabagabowday barbardhac gool la'aan ah balse markii la isugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaartaasi ayaa xulka gobolka Sanaag oo isagu ku ciyaariyay 10 ciyaartoy kadib markii garsooraha ciyaartaasi uu mid kamid ah ciyaartooyada gobolka Sanaag ugu taagay kaarka guduudan ayaa iyagu keenay daqiiqadii 16aad ee qaybtii dambe ee ciyaartaasi gool uu dhaliyay laacibka uga ciyaarayay khadka dhexe ee lagu magacaabo Geedi isla markaana uu sitay lambarka 6 taasi oo kor u kicisay diiladii ay gobolka Sanaag ka qabeen inay u gudbaan wareegga afraad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland waxaana xulka gobolka Sanaag ay muujiyeen dadaalo xoogan isla markaasna waxa ay dhowr jeer sigeen in xulka gobolka Maroodijeex ay ka dhaliyaan gool kale taasi oo ay hadii ay Sanaag dhalin lahayd ay maanta ugu gudbi lahaayeen wareegga afraad tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland balse dhamaadkii ciyaartaasi markii uu ka harsanaa 1 daqiiqo oo kaliya ayaa xulka gobolka Maroodijeex laacibkooda uga ciyaaray lambarka 7 isla markaana lagu magacaabo Sharmaarke uu dhaliyay goolkii barbardhaca ee gobolka Maroodijeex taasi oo sii fogeysay diiladii iyo natiijadii ay ka qabeen xulka gobolka Sanaag inay u baxaan wareegga afraad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland waxaana maanta si rasmi ah u soo baxay gobolka Maroodijeex oo isagu ilaa haatan noqonaya gobolka labaad ee u gudbay tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland isagoo hore ugu gudbay gobolka Hawd oo isaguna ka tirsanaa groupka koowaad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland waxaanu groupka koowaad uu noqday mid ay ka baxeen gobolada Hawd iyo Maroodijeex halka Togdheer iyo Sanaagna ay noqdeen gobolada ka hadhay tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland markii ciyaartaasi soo gabagabowday ayaa tababaraha gobolka Maroodijeex iyo qaar ka tirsan ciyaaryahanadaas ay cabireen dareenkooda ku aadan ciyaartani ay maanta barbardhac la galeen gobolka Sanaag jirnaa soo diyaarno in afarta waxa weeye kullayba ciyaartaas aan waa u diyaargano ciyaarta afarta oo rajayna inaan kullayba ciyaar wanaagsan muujino guul la ka keenno insha Allah waana waxa weeye